dowladda Burundi ayaa ka hadashay weerar shalay ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay si kooban ula wareegeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab isla markaasina ay jidku u galeen ciidamo Burundi ah oo wadada marayay madaxweyne ku-xigeenka dalka Burundi ayaa idaacadda codka Mareykanka ku hadashay ee VOA u sheegay in 5 kamid ah askartooda ay ku dhinteen weerar jidgal ah oo ay kala kulmeen xarakada Al-Shabaab sida ay u sheegeen idaacadda VOA dad ku sugan tuulada Qalimow ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in deegaankaasi ay marayeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo jiidayay midadka asgar ajaaniba Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarka ciidanka Burundi ay ku dileen 20 kamid ah ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Burundi iyaga oo xusay inay jidka u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ee nabadgelyada u jooga dalka Soomaaliya Shariif Yusuf Ali Saab TV magaalada Muqdisho